السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قال مeel kastoo adduunka aad ka joogtaan waa walaashiin mulki xasan maxamed oo idin leh caafimaad iyo barwaaqo ku noolaada ma og tahay midka dayacay salaada iskana dhiga tiray inuu tukado salaada dad aad u qiimo badan oo adduunka laga aqoonsan yahay saqiiraha adduunka dul saaranna ay yaqaanaan in shaqada ayaga ay hayaan ay ugu fiican tahay ama ay ugu wanaagsan tahay sidii ay aamineen salaada ma og tahay dad aad u fara badan in ay ku faanaan islaamnimadoodu ayagoo adduunka caanka ah aanna ka baqin gaalada ay xiriirka la leeyihiin ama ay u yihiin shaqaalaha ayagoo noocba nooc ah caddaan iyo madow iskugu jiro haddana aan aaminin in laga saari karo shaqadaas maadaama ay yihiin dad muslin ah una soo jeeda in ilaahi subxaana wa tacaala waqtigiisii salaada markii la gaaro wax walbo ay hayaan inay dhigaan sidii ay u raali gelin lahaayeen allah subxaana wa tacaala uguna raali noqon lahaa waxaaba intaas sii dheer markii ay helaan wax ay ku farxaan way sujuudaan oo allah subxaana wa tacaala ayay ugu mahadiyaan wayna ku faraxsan yihiin nolosha ay ku nool yihiin ee ah muslimnimada dad aad u fara badan ayaa ka soo horjeedo muslimiinta kuna dhaleeceeya waxyaabaha ay sameynayaan oo ay ka aaminsan yihiin inay wax qaldan yihiin ayaga wax qaldan ku taagane haddaba baraarujintan waxaa looga gun leeyahay muslinka dhabta ah inuusan ka xishoonin diintiisii islaamka ahayd ee aadka u fiicneed una wanaagsaneed qofka muslinka ah waxaa laga doonayaa inuu leeyahay suurad muslin waayo gaalada waxay ku kala aqoonsadaan muslimiinta iyo qofka gaalada ayaa wuxuu yahay muslimka wuxuu leeyahay suuradda islaamka wiilka wuxuu deystaa garkii sunnada ahaa gabadhina waxay qaadataa xijaabkii aadka u quruxda badnaa ee soo jiidasho lahaa laakiin dad badan ayaa midaas iska indha tiray oo hadeertaan aaminsan inay horumarka iyo quruxduba ay ku jirto dhaqanka reer galbeedka midaasoona khalad ah oo ay aaminsan yihiin dhalinyaro aad u fara badan markii aad kala hadashid waxyaabahaas ama waxyaabo la mid ahna waxay ku dhahayaan waa dambeysaayo horumarkaba wax kama taqaanid horumarka saxda ayaa wuxuu ku sugan yahay kitaabkeena oo ilaahi subxaana wa tacaala noo soo dejiyey ninkii barta ee ku dhaqmana horumar ilaahi wuxuu gaarsiin doonaa aakhiro iyo adduunyo ah adduunyada waxaad ka raadinaysidna waxay kaaga dhex jirtaa kitaabkaaga aakhirana ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu kuugu shafeeci qaadi doonaa biidnillaahi baari waxaan halkan kala hadlayaa waa kan jeestay ee ilaahi subxaana wa tacaala cabsidiisa ka jeestay kana tagay salaadaha kana tagay oo ka hijrooday kitaabkiisa waxaan ku leeyahay walaal adduunyada qiimo ma lahan maalin walba waxaan aragnaa dad anaga noo dhawaa oo sii hayaamayo hebel wuu dhintay iyo heblaayo way dhimatay ayay adduunyadii kusoo gabagabowday ma waxaad ilowsan tahay in ilaahi subxaana wa tacaala uusan ku qaban karin maya ilaahay wuu ku qaban karaa laakiin waxay tahay wuxuu rajaynayaa in aad ka toobad keentid waxa aad ku jirtid insha allah waxaan kuu rajaynayaa si wanaagsan inaad ugu toobad keeni doontid wixii aad ku dhacday oo qaflad ahayd ilaahi subxaana wa tacaalana qafladda hanaga qabto waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu